laas aano 10 ruux baan ku dhay 8 ruux gaarigan ay saarantay 25 sanaan joogay 25 sanaan joogay ma awiista ishaarkan aan ka wataa awiistan ishaarkan aan ka wataa hantidaydan halkaan ay jirtaa waxa li gu samay ilaahay ba rasuulkanu sheegana waxa go'aan ku soo gaaray inaan hantidayda dhacsido ban go'aan ku soo gaaray laakiin maanta marka liiga hor yimaaday oo li soo caawiyay waa iska gooy salaameyna muuse bixi waxayna ugu soo sameeyeen aruurteen iyo aabaheen oo 9 jira aniga dacsi wadanin qabo wadanin ba gaar naga soo saar aruurta soo kaxisana markale wax ba idin sheegay muddo bal idin soo qabnaa soo baxo xafiiskii maadan waan keenay muddada soo waxayna dhay wax dib uma noqonaysan aruurna ma soo kaxaysanaysan alaabtii ma soo qaadanaysan orda gaariyaashan qor aruurtana ku soo tagnay aabeena ku soo tagnay handadayni hore waan ku soo tag kobol aan ba ku socona gabsaar la'aan ba ku socona wax adduunyada ku dhicin ba wiligiis naga soo riday ilaahay baa ugu maxdinay ilaahay baa amarkaas noo qoray kale dib waan nahay dibkaasna ilaahay baa noo qadaray dacs la'aan baa kobol aan aruurteena naascaanada ugu soo tagnay inuu waxay joonaan gaalkaayo ummadda Soomaaliyeed waxba ma joodo lanki 5 aruur dhalay 2 ba wata 3 baa ku soo tagay nanki 2 wato 1 baa ku soo tagay 2 waxalna waa wataa dib nooma yar aruurtan kulina saarad baa joon waana noo soo diiday dib u noqonayna raashin ma soo qaadanin biimoodana baad moodana kaxay hanta naga maqan xoolaha naga maqan ciyaal baa naga maqan dhar ma soo qaadan ciyaalkeen caanahooda waana noo soo diiday waxa naga maqan wiil baa iga maqan ciyaalkeen oo dhan baana noo diiday caanihii baana noo diiday dhar ma soo qaadan waan dayacaanahay waan dar xumaysanahay sila ay saxariir baan ku soconaa ciyaal baa nagu wada xunqaacay naagihii baa wada xunqaacay anagoo dhan wada sakaraad baanu nahay waxaan idinka doonaynaa madaxweynaha sharafta laha waxaan ka doonaynaa in la soo dhaweeyo dal iyo dibad meel kasta oo la jooga in la soo dhaweeyo baan u baahanahay hantadayda iga maqan xoolahayga iga maqanaay gabaadhi baa iga maqan meherad baa iga maqan guri dhis baa iga maqan 13 neef ariya baa iga maqan xoolahayga baa la iga dhaxay hantadayda baa la iga dhaxay waxa iga dhacay Somaliland baa iga dhacday agacadaan baa magaalada la iga soo saaray Soomaaliyeed baanu nahay waxaan hadlayna ma leh waxaan galabsana ma laha ayaga dadka dila ayaga dadka dhibaateeya hantadeena iyo xoolaheena baan u baahanahay meheradaheena iyo qofilin baan laga soo kaxistay hantadeena iyo xoolaheena ayaga haysta waxa ka doonaynaa madaxweynaha sharafta laha garabkiisa gargaarkiisa baan nahay Somaliland xoolaheena nooga soo qaado meheradaheena qofil ma saarna meheradaheena qofilna dalkayga xirna baan loo diiday ciyaalkay bilaacaana bay halka saaran yihiin 6 aroor xali baa fiidkii baa la kaxistay ilaa xilligan dalkayga dunyada waxna kama sheego dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanay hantadeeda xoolaheeda Somaliland halayga soo qaado anigu aan ahay odayaasha ama ismada Puntland ku dhagan ee ka soo jeeday koonfur galbeed magaceygana waxa la yiraahdaa Malaaq Khaliif Maxamed Axmed gaar ahaan malaaqa digli marfle gobolka Nugaal baan ahay saaka maanta arinta markay dhacday baa dadka soo raadinay goor hadda baadul maqrab ee waxaan ku soo gaarnay degmada Burtunla iyadoo raashin iyo biyo iyo nolol loo keenay oo laga hortagay dad islaam oo walaalahooda ay haleen baa haddeer meesha ugu imaanay haddeerna waxa naga hor yimid oo soo dhaweeyay dadka haddeer socdo oo raashin iyo u keenay degmada hogayaha degmada Harfa iyo gudoomiyaha maxkamadda iyo odayaal badan oo degmada Harfa ka socdo waa mahadsan yihiin shacabka reer Puntland iyo dawladda Puntland waa u mahad celinaynaa hadaanu nahay shacabka digli marfle ka soo jeeday koonfur galbeed shacabka Soomaaliyeed ee reer Puntland iyo dawladda Puntland waa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahad iska leh عفرنا ودرس maamulka Somaliland waxaan u dirayaa war Soomaalinimada hadda diidan islaamnimada hadiidinina islaam baa isku nahay dadkan dad islaam weey dad idin ku dhaxan noolaa guriyihiina ku noolaa magantiina ahaa oo idin ku dhax shaqaysanaya aan shuur ka qaadanayseen weey haddaad dhibaato u aragteen hantidooda iyo iyagoo tartiib si nabadgelyo inay isku soo dhaafsadaan baa fiineed hantidii waa kala soo harteen qaar baa aruurtooda meeshii jira oo ilaahay halay bay maxbuus ahaayeen maanta waxa ilaahay maanta maxbuus ahaayeen haddeer gabar baa ku dhashay oo gaariga dushiisa gabar baa hadda foolanaysa oo tabaan hadda isbitaalka geynay waxaasi islaamnimo ma ahan
waa wax Soomaalinimada islaamnimada ka baxsan way Soomaali halka naga geey Soomaali ba iska daa war waxa doontaan noqda marka arinta maanta halka u taagnay caaw habeen barkii waa arin murugo badan leh umada meeshii joogta ama xilligaas hadda la joogo ama 9 saac ama 8 saac habeenimo maamul waxaan ka yimid gobolka Nugaal waxaan kale ka soo jeeday gobolka Bari odayaasha waxaan ahay Digle Marafle suldaanada Digle Marafle nahay arinta murugo leh baa halkaan u nimid waan u taaganahay annaga iyo maamulkii Puntland dadku ugu sareeya maamulka iyo inta ugu hooseysay shacabkii ummadii dhan baa wada taagan arintaas waa arin murugo leh arintaasan u taaganahay ummadda la soo barakeeyay caruur dumar iyo rag iyo ganacsato isugu jiraan maanta waxaan media ka arkaynay hantidoodii oo la boobayo oo la dhacayaan arkaynay 24 saacadood bay soo socdeen waa 12 baabuur qof baabuur kasta waxa saaran aan u malaynayo ilaa 60 ilaa 100 baa saaran waa 100 baan ku qiyaasnay dadka gawaarida saaran inta soo socda haddana soo gaaraysa waa 7 baabuur kale soo socotaan lagu yiri wadada ku soo jira waa dad kale magaalada Garow ayagana gaaray baa jira ummadii wadooyinka wada daadsan tahay maamulka si fiican baa u gurmuday oo aragtay ilaa Nugaal ilaa aragtay gobolka iyo degmada Mudug ilaa Gaalkaya laga yimid aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh ilaahay baynu u mahad celinaynaa meeshan dhibaatada ka dhacday dhibaato la eegan kara ma ahan dhibaato aad u ballaaran baa ka dhacday waxaan leenahay horta ilaahay ha fahansiyo xaq islaamnimada iyo derisnimada iyo xuquuqda la isku leeyahay ha fahansiyo ku dhibaatadan ummadan u horseeday dad maata ah masaakiina ciyaal yar aan caano mooyaane wax cuni karin bay shalay iyo xalay ilaa iyo maanta saacadan hadda la joogo gawaaridan saaran si loo dejiyo ma lahan si loo wada ma lahan mushkil badan baa jirta dhibaatadaas dadka geysay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u toobad keenan toobadu way furan tahay waxaan leenahay xal marinna waa ka sugaynaa inay ka bixiyaan guud ahaan muslimiinta ay xal mariyaan gaar ahaan reer macnaha koonfur galbeed inay xal mariyaan iyo dadka dhibaatada u geysteen